Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawow Sokosid Academy. Maanta waxaan rabnaa inaan sameyno shahaado anagoo aan isticmaalayno Ms-wordka. Marka ugu horeyso waxaan soo kacsanayaa horta Ms-wordkayga. Markaad soo kacsato Ms-wordkaada waxaad ku dhufanaysaa page layout tabka si aad warqadaada aad ugu dhigto landscape. Warqadu markaad ka dhigto landscape waxa ku xiga markaad dooranayso wuxuu yahay inaad shaashadaada aad gaabsato si aad ugu ogaato frameka aan soo gelin rabno. Waxaan ku dhufanayaa insert tab kadibna waxaan ka dooranayaa shape markaa ka doorato waxaad ka sii dooranaysaa framekani halkaani ku jira. Framekaas halkaas ku jira markaa klik aan ku siiyo waxaan ka soo bilaabanayaa halka cirifka geeska ah anigoo ilaa aan ku jiidayo qaybtan hoose ee ugu dambeysa. Waxaad sameynaysaa calaamada jaalada ayaad ku dhufanaysaa si aad gudaha aad ugu yareyso. Intaas camal ayaan ka dhiganayaa kadibna shape-ka hadda waxaan sameynayaa geesaha iyo meelaha uu ka cad yahay ayaan ku weyneynayaa. Waxaan rabaa marka shape-kani inaan ka bedelo calaamada buluugtii dhexda ku jirto oo aan ka dhigto wax la yiraahdo button ama aan qurxiyo. Shape-ka dushiisa ayaa waxaad ku dhehaysaa right click kadibna waxaad ka dooranaysaa format shape. Format shape markuu halkaas uu ku keeno waxaad ku dhufanaysaa button fill kadibna batanadani midkaad rabto ayaad ka dooranaysaa kadibna click ayaad ku siinaysaa ama close ayaad ka dooranaysaa. Waxa ii soo hartay marka inaan ka qaado calaamadahan geeska outline-ka loo yaqaano shape-ka double click ku sii kadibna waxaad ka dooranaysaa shape outline no outline ayaa ii soo baxayso. Sidaas ayuu ii noqonayaa oo quruxda badan. Waxaan rabaa markaada inaan geeskan ama labada geesood oo bidix iyo midig hoose iyo kor ah inaan kala siiyo shape yar oo qurux badan oo gaduudan. Halkaas ayaan ku dhufanayaa insert-iga shape ayaan soo dooranayaa shape-kan ayaan soo dooranayaa halkaanaan imaanayaa geeska anigoo ka soo qabanayo ilaa halkaas ayaan ku jiidayaa. Markaan ku jiito waxaan rabaa marka shaashadayda inaan soo dhaweysto si shape-iska meelahan geesaha aan ugu jiro. Halka geeska ayaa right click ku dhehaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa edit bounty markaad ka doorato halkaa ayaa imaanaysaa right click ayaad ku dhehaysaa halkaa ayaa imaanaysaa right click ayaad ku dhehaysaa kadibna wuxuu kuu soo qabanayaa calaamad yar oo dood ah ama dhibic ah ayuu meesha ii saarayaa. Ama waxaad ku dhihi kartaa halkaasi marka aad geyso oo halka aad marayso right click inaad dhahdo kadibna add bounty aad ka doorato oo bounty-ga ayuu kugu darayaa. Haddana sidaas si lamid ah waxaan rabaa qaybtan hoose inaan u siiyo oo halkaan ah. Halkaas ay ku aadinay flare-ta markay sida ay noqoto right click ayaad ku dhehaysaa kadibna add bounty ayaad dhehaysaa oo bounty-ga ayaa lagugu darayaa. Kadib markaasaas dhahdo shaashadayda marka sideeda caadi aan u soo ceshanayaa halkaan imaanaya right click ayaan ku dhahayaa. Right click markaan ku dhaho kadibna waxaan dhahayaa delete markaan dhaho marka halkaan geeska ayaan waxaan ku siinayaa click waxay ii soo baxaysaa calaamadaasi. Calaamadaas markay ii soo baxdo waan qabanayaa waan jiidayaa anigoo la ekeysiinaya marka shape-ka ka dambeeya ayada si istaag oo dhirir ah ayaan ula ekeysiinayaa. Halkaan imaanaya sidaas la mid ah haddana click ayaan ku siinayaa. Halkaa markaa marayso waxaad ku dhufanaysaa marka midaani kadibna ayadana waad istaajinaysaa oo si dhirir ayaad ka dhigaysaa adigoo midka kale la ekeysiinaya. Hadda sidaas marka waxaa ku samaysatay shape yar oo geeska ayaad saaratay kadibna double click ku sii midab waxaan ku shubayaa oo gaduud ah halkaan ku dhufo outline-kan gaduud iga dhig. Marka waxaan rabaa shape-kan u eg inaan saarto qaybtan hoose oo halkaan ah. Markaan rabo inaan saarto halkaan ayaan click ku siinayaa control iyo alt ayaan isla qabanayaa kadibna mid kale ayaan ka dhex sameynayaa oo soo jiidayaa kadibna halkaan ku dhufo kala wareeji rotation ku samee halkaan imow oo halkaa geli. Sidaas marka waxaa ku samaysay
labada geesood ee shape-ka la soo gelinayo. Marka waxa ku xig marka waxaan adeegsanaynaa oo yahay loogada iskuulka ama loogada akademiyada inaan soo qaato. Loogada akademiyada waxaan ku soo gelinayaa shape. Waxa ugu badan aan adeegsanayno wuxuu noqonayaa waa shape-ka. Halkaas ayaan shape-ka ku jiidanayaa. Kadibna waxaan ku dhufanayaa fill picture. Kadibna waxaan ka dooranayaa shape fill-ka, waxaan ka dooranayaa picture. Picture markaan ka doorto wuxuu i geynayaa meesha sawiradeeda yaalaan. Anigu sawiradeeda hadda waxay i yaalaan qaybta desktop-ka meel ay ku qoran tahay ID card-ka. Cashirka ID card-ka horaan u soo duubnay wuu ku jiraa YouTube channel-keena ka daawo. Waxaan soo gelin marka loogada akademiyada waxaan ka qaadayaa wax loo yaqaan outline-ka. Kadibna anigoo geeska ay geynayo kadibna halka ay ii saarnaanaysa. Kadib waxaan soo gelinayaa marka magaca akademiyada. Magaca akademiyada waxaan ku soo gelinayaa waxa la yiraahdo word art. Word art waxa la yiraahdo ayaan ku soo gelinayaa magaca akademiyada. Waxaan rabaa marka inaan soo geliyo magaca akademiyada anigoo isticmaalaayo word art. Waxaan ku dhufanayaa word art-ga halkan ii saaran insert tab-ka ku dhufanaya word art ka dooro. Word art-yan midka aad adigu jeceshahay marka ama kula qurux badnaado ayaad click ku siinaysaa ayaad qaadanaysaa. Anigu hadda midkan ayaa ila fiican. Click markaan ku siiyo halkan ay ii soo saarayaa soo jiid oo halkan keen. Kadibna click ayaan ku siinayaa your text ayaan iska tirtirayaa oo waxaan ku qoranayaa meeshaasi Soccer Academy. Kadibna waxaan sameynayaa marka waxaan weyneynayaa intay farta ama qoraalka uu ku jiro anigoo kiisaha shape-ka ka jiidayo. Kadibna aan u soo laabanayo farta sidaan u weyneeyo. Waxaan tagaysaa home tab-ka kadibna eeda taabo farta sidaas ayay ku weynaanaysaa. Waxaa iska dul saarmay loogada iyo qoraalka. Waxaan ku qasbanayaa marka inaan kala dejiyo oo loogada halkaas aan u jiido ama geeska aan geeyo anigoo isticmaalayo inaan jiido. Kadibna fartayda hadda halkaas ay ii saaran tahay, loogada iskuulkana halkaas ayay ii saaran tahay ama akademiyada labaduba halkaas ayay ii saaran tahay. Kadib maxaan u baahanahay marka nooca shahaadada aan bixinayo inaan qoro oo ah certificate of achievement. Waxaan ku dhufanayaa insert tab-ka shape ayaad ka dooranaysaa. Kadibna text box-kaas ayaad dooranaysaa. Halkan ayaan imaanayaa halkaas ayaan ku jiidanayaa text box-kayga. Kadibna waxaan ku qorayaa certificate of achievement. Certificate of achievement. Kadibna qoraalkaada select garee dhexda geyso adigoo ku dhufanaya home tab-ka. Kadibna alignment center-ka dooranayo. Kadibna farta weyneyso. Farta intaan weyneyn horta farta ayaan iska bedelayaa oo waxaan dooranayaa far international ah oo new times ah. Kadibna farta ayaan weyneynayaa anigoo ku dhufanayo halka eeda ay ku qoran tahay. Meeshaas hadda marka waxaan ka sii dhigayaa poly xogaa waa weyneynayaa. Kadibna haddana waxaan ka sii dhigayaa inaan hoos ka xariiqo. Kadibna waxaan ku dhufanayaa calaamadda wareegga ah no outline ayaan ka dhigayaa. Outline-ka sidaas ayaan ugu saaray waa certificate of achievement. Qofka shahaadada u qaadan lahay ayaa marka shahaadada magaceeda waxay tahay marka certificate of achievement. Markaan waxaan ku sameynayaa marka shape-ka ayaa right click ku dhacayaa. Kadibna waxaan dhahayaa send back gadaal u dir. Hadda maxaad aragtaa si qurux badan inay ku soo baxday. Marka waxa ku xig marka yaa la guddoonsiinayaa ama qaab national loo guddoonsiinayaa qofka. Waxaan tagayaa oo aan isticmaalayaa isla shape-kii haddaan isticmaalayn oo text box ah halkan ayaan ku jiidanayaa. Waxaan dhahayaa marka this certificate is proudly presented
by presented by shift laba dhibac kadibna qoraalkaada waxaad tagaysaa home tabka dhexda geyso fartaan isticmaalayno new timeska dooro kadibna farta waxbaad ku daraynaa kadibna xogaa yar kor u qaad outline kiga qaad ina outline de outline kiga qaad marka shahaadadan yaa la guddoonsiinayaa qofka la guddoonsiinaya marka magaciisa sababtoo ah this certificate is proudly presented waxaa marka qeyb iyo si maaragtaa qofka la weyneyna loo guddoonsiinayaa ninka la yiraahdo ama shakhsiga la yiraahdo labaduba master iyo mrs waxaan soo qaadanayaa marka shapekeygii ayaan hadda soo ceshanayaa oo halkaa aan ku jiidanayaa waxaan dhahayaa marka master slash haddii dumar tahay waa mrs ayay qaadanaysaa ayaduna dhibic c labada qofba waa lagu qori karaa magacyadooda kadibna halkaan ayaan imaanayaa waan ka sikanayaa kadibna waxaan u sameynayaa marka shape-ka xariiqinta dheerta ah si qofka magaciisa halkaasi loo geliyo marka waan select gareynayaa oo waxaan geynayaa aan ku aadinayaa dhexda farta loogu talagalayna waxaan dhahayaa waan fartaan hore u isticmaalayno ah new terms outline-ka ka bixi no outline kadib meeshaasi waxaan ka dhigayaa xogaa bold ayaan ka dhigayaa si u weynaato loo fahmo kadibna waxaan soo qaadanayaa haddana isla shape-kii ayaan soo ceshanayaa oo ah midkaani sababta shahaada loo guddoonsiinaya inta ku xidhan marka for successfully gutay ama dhamaystay successfully completed waxaad tagayaa home tabka markaad tagto qoraalkaada waxaad geysanaysaa dhexda isla farta aan ka bedelayaa horta oo far waxaan u baxsanayaa oo mida ah kadibna waan weyneysanayaa for successfully completed dhamaystay oo si wanaagsan u dhamaystay muxuu dhamaystay marka fundamental of a computer waxaan soo gashanayaa isla shape-kaadii oo kaleeto soo gasho anigu markan ayaan hadda waxaan ka sameynayaa marka mid copy ah asaga u eg copy sida loo sameynayna waxaan kusoo qaadanay shape-ka labada gees ee shahaadada ii saaran sidaan ku sameynay control alt ayaad qabanaysaa kadib aad soo gelinaysaa waxaan dhahay marka fundamental of a computer aasaaska computerka aasaaska computerka ayuu dhamaystay marka aasaaska computerka farteed waa inaan bedelaa waxaan ka dhiganayaa far kale oo ka qurux badan mid hadda noo qoran fundamental of a computer dhamaystay marka aasaaska computerka wata kadibna waan ka qaaday shape-ka oo sidaas ay noqonaysaa oo aadka u quruxda badan marka waxaan u baahanahay marka waqtiga la baxshay inaan soo gelsho waqtiga la baxshay waxaan soo qaadanayaa shape yar oo ah isla shape-kan aan isticmaalayay oo halkaani ayaan ku calaameysanayaa oo kadibna waxaan ku qorayaa marka date shift laba dhibcood kadibna waxaan qabanayaa shift alt d oo taariikhda maanta ii soo galayso current date ah kadibna
waxaan sameynayaa farta ayaan bedelanayaa oo taariikhda ah. Waxaan ka qaadayaa outline-ka. This is marka tani waa qaabka loogu sameeyo shahaado adigoo u maraayo Ms-wordka. Marka hadda meeshaan waxaad aragtaa calaamad yar cadaan ah inay kaga soo muuqato ama hoos aan u dejiyo cadaanka ah. Sidee ku baabi'inayaa? Right click shape dushiisa ku dheh. Kadib waxaad ka dooranaysaa send back. Hadda maxaa aragtaa? Calaamadii wuxuu geeyey hoos ayuu geeyey oo shape-kaani ayuu ka hoos marinayaa. Waxaan marka waxay tahay aan u baahanahay marka halka uu saxiixi lahay signature-ka maamulaha uu bixin lahaa ama principal-ka uu bixin lahaa. Waxaan soo qaadanayaa shape-kayga oo text box-ka halkaani ayaan imaanayaa. waxaan ku qorayaa meeshaasi principal signature oo halka uu saxiixi lahay maamulaha. Kadibna calaamad yar ayaan siinayaa oo halkaa. Kadibna waan select gareynayaa anigoo dhexda ku aadinayo oo control E isticmaalayo. Kadibna farta aan isticmaalayo badanaa ayaan ka dooranayaa. meesha sida cagaarta lagu haysto ayaan iska soo saxayaa oo sidaas ayay noqonaysaa. Sidaas ayaan ka dhiganayaa. Double click ku sii. Kadibna no outline ka dhig meeshaasi. waxay noqotaa hadda marka midaan outline lahayn. kadib maamulaha halkan saxiix tartiib u saaraya. marka waxaan rabaa inaan sameeyo marka calaamada shabada ah. calaamada shabada ah sidee ku sameynayaa? waxaan ku dhufanayaa insert tab-ka. waxaan ka dooranayaa shape. kadib waxaan soo qaadanayaa shape-kaani madaxyada badan ee 12 madax leh. waxaan saaranayaa halkaani ayaan ku calaameysanayaa. waxaad hadaa rabtana kor waad u qaadi kartaa oo ilaa sidaa camal waa ka dhigan kartaa. oo shape-iska marka madaxyada 12 marka kuwa ka badan ay jir 4 leh ayaga oo meesha ku jira. kadib markaan soo qaato shape kale caadi ayaan soo qaadanayaa. asaga ayaan dul saarayaa asaga. halkaan ayaan ku dhufanayaa oo waxaan ka dhiganayaa calaamadahan mid ka mid ah ayaan ka dooranayaa sidoo igu soo baxo oo u muuqayo. kadibna shape-ka hoose ayaan kale ku siinayaa. asagana waxaan u doorayaa midab kale ayaan u doorayaa oo midabka ka agdhow. marka sidaa aan ku sameeyo waxaan rabaa marka laba calaamadood oo jiidan inaan sameeyo oo dabada hoose ama gunta hoose ugu dhigin. kan ayaan kale ku siinayaa. halkan ayaan ku sameysanayaa horta. marka halkaa ku sameysto midabka ayaan ka bedelayaa horta oo midab oo waxaan u sameysanayaa midabka oo kaleeto ah. halkan dhexda ayaan right click ku dhahayaa. kadibna waxaan ku dhufanayaa edit bounty. kadib anigoo dhexda isku aadinayaa ayaan halkaa hore u jiidayaa. marka halkaa hore u jiido waxaan sameynayaa marka mid asaga weeg ayaan ka sameynayaa anigoo shift control iyo alt isla qabanayo. kadib markaan isla qabto waan toosinayaa. kana sidaas oo kale halkaa ayaan ku dhufanayaa. halkaas ayaan ku dhufanayaa waan toosinayaa. kana sidaas oo kale halkaan ayaan keenayaa. marka labada shape control-ka ayaan qabanayaa. click ayaan ku siinayaa. kadibna option-ka yar ayaan taabanayaa. option-ka yar markaad taabato ama right click ku dhaysaa
kadibna waxaad ka dooranaysaa send back oo wuxuu galayaa marka qaybta hooseyso ayuu galayaa. Marka shape-kan ayaa xoogaa marka iga qaloocan, kilig ayaan ku siinayaa. Marka sidaas markaad u samayso waxaad ku dhufanaysaa halkani file, kadibna waxaad ka dooranaysaa print preview. warqadeyda hadda sidaas ayay igu soo baxaysaa oo shahaadada dhammaystiran ah. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkayga subscribe saar una share garee asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan.